أجنبي oo Itoobiyaanka lagu asuuqayo mid dadka baa lagu raabayna oo beelay joogan laakiin ninka af Soomaaliga ku hadlayo ee dhahaya Soomaali qaar ba Itoobiyaan ah qaarna waa Kenyan qaarna waa ki waa arin xanuunkeeda mudan taliye isku sheegaasina waxaan leeyahay mangabina tahay maxaad u leysay maatadi السلام عليكم صاحبي halka daga daawanaysan waa channelka shaacir sheekay laakiin shaacir sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada oo rabay inaan ku jeexjeexo waxa ka socda laascaano hadaba daawadayaal inta barnaamijka ugu gudgalin fadlan subscribe sar channelkayga sidoo kale like sar muuqaalkan si uu gaaro saaxiibo badan waata wahagaag saaxiibayaal magaalada laascaanood maalintii labaad waxa ka socda tarxiilka dad Soomaaliyeed oo laga buuxinayo baabuur kadibna la tarxiilayo shalay ay ahayd markii muuqaalo baraha bulshada lagu baafiyay la arkay dad Soomaaliyeed oo ka buuxa baabuur isla markaana laga tarxiilay magaalada Laascaanood hadaba arrinkaasi dad badan oo Soomaaliyeed oo geyga Soomaaliyeed caanka ayaa aad uga carado kuwa isugu jira siyaasiyiin iyo dad arrimaha bulshada ku hawlan hadaba waxaan idin hayaa muuqaalo markii aad daawataan aad ula yaabi doontaan oo hadda laga soo duubay magaalada Laascaanood kuwa oo muujinaya qaabka loo tarxiilayo dadka ku sugan Laascaanood hadaba arrintaasi intaan ugu gudagelin waxaan rabaa in adiga daawanayo aan ku weydiiyo hadaba hadii aad muuqaalkii ku soo gaaro aadna isha ku hayso waxa ka socda Laascaano sideed u aragtaa Somaliland ma ku saxsan tahay in dad Soomaaliyeed ay ka tarxiisho gudaha Laascaano isla markaana ay meel kale u tarxiisho adeehan sidee kula tahay fikirkaaga nooreb intaan barnaamijka ugu gudagelin waa maxsanta waata hadaba Laascaano intaan arrinteeda ugu gudagelin maalinkii labaad maxaa ka socda wax muuqaalkana wada daawan in xaafadda Jamalaaye oo kamid ah xaafadaha ugu waaweyn magaalada Laascaanood isla markaasna xaafadda ay si weyn u degaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa saaka ku waabareysatay maalinkii labaad ciidamada booliis oo aad u tiro badan xaafadan waxa saaka laga tarxiilayay ama guryahooda laga soo saarayay oo ay bartilmaameedsanayeen guryaha ay degan yihiin dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ilaa iyo 50 qof ayaa la sheegay in halka saaka laga kaxeeyay in booliisku waxay hortaagan yihiin mid kamid ah xaafadaha ay degan yihiin dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee shalayto laga tarxiilay magaalada Laascaanood qaarkoodna waxay sheegeen inay halkan ku sugan yihiin ilaa saakana la tarxiilay ilaa saakana halkan laga radayay waxa kale wararku sheegayaan in la wargeliyay maayarada magaalooyinka xudun haday noqoto Taleex Tukaraq iyo Goori Kalabaydh dhamaantoodna lagu wargeliyay in dadka jooga tuulooyinkaas ama degmooyinkaasi inay dadkaasi soo raafaan Laascaanoodna keenaan si hadana loo sii raafo loona geeyo koonfurta Soomaaliya dadkii shalayto laga tarxiilay magaalada Laascaanood ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay Burtinle oo ka tirsan gobolka mudug hadaba taliyaha booliska Laascaano ee Somaliland oo arrintaasi ka hadla waxa uu sheegay inay iyagu yihiin Somaliland isla markaana aysan Soomaaliya aqoonsaneen qof kasta oo Soomaaliya ka soo jeedana ay dib ugu celi doonaan meelihii uu ka soo jeeday arrintaasi oo dad badan ay aad ula yaabeen halka waa lagu dhax jiraa markay dhamaatana waa qof waxay waaya maxay tahay sababta loo urinayaa laakiin halo sababta loo urinayaa taliye oo hadda keentay in la ururiyo la waligood way ka ganacsan jireen maxay tahay annaga waa noo ajnabi oo Itoobiyaanka lagu asuuqayo mid dadka baa lagu raabayna oo beelay joogan waa gartay niman Soomaali ah oo magaalada ka ganacsanaya sidee loo oran karaa waa ajaanib taliye walaalaha Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa la badan Soomaaliyeed waaya Soomaali inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadaba ninka sidaas u hadlaya waa nin oo taliye ah oo ku magacaaban taliyaha booliska Laascaano Soomaaliland ku magacaaban waa ninka sidaas u hadlaya waxa uu leeyahay Itoobiyaanka iyo Soomaali waa isku mid laakiin ninka af Soomaaliga ku hadlayo ee dhahaya Soomaali qaar ba Itoobiyaan ah qaarna waa Kenyan qaarna waa ki waa arin xanuunkeeda mudan taliye isku sheegaasina waxaan leeyahay mangabina tahay maxaad u leysay maatadi soo intaad ismooday maskaxdaada may gelin dalka maamulkeliga waa nasiib daro in dad Soomaaliyeed ay Itoobiyaanka la mid noqdaan runtii waa arin aad iyo aad u xanuun badan waxa ay damqanaya aniga waxa ay tahay ma ahan in siyaasad arinteed aan ka hadlayo ama qolo gooniya aan u doodayo laakiin waxa ay damqanaya waxa ay tahay hooyo Soomaaliyeed
in la yiraahdo Ethiopiankii nolol simanta hooyo Soomaaliyeed oo cunugeeda dhabta ku haysata xanuunka ay dareemi kartaba idamqinaya laakiin taliyaha booliska Laascaanow balaayad ka talis xaqiiqatan balaayad ka talis ummadaas masaakiinta ah ama hooyooyinkaas masaakiinta dhibka aad u geysatana maalinka yawmal qiyaamah waa su'aal ku taal lagu weydiinay haddaba hadalka taliyaha markii laga soo gudbo iyo muuqaaladii baraha bulshada lagu faafinayay ee muujinayay qaabka loola dhaqmayay dadkii Laascaano ku sugnaa ee loo tarxiilay waxa jirta dad badan oo Soomaaliyeed oo arintaas aad uga xumaaday nimcaan hilaac oo mar Somaliland ku sugnaa jiray hadda se aan ku sugnayn ayaa sheegay marin habaabintii ugu cajaa'ibsaneed Laascaanood marti ayaa marti kala raaftay وهذا الحنفتي سوت لكن مرة بيننا نكسي في محفى فهنا كسي بحيو لكن عقم ده هاي دتكي سيدا وين أجح معدي أرنتي كده على الأسعار أرنتاسي أرنتي متقاد وحنون بدن قف كستو وديك مسلمين ما كتير ما كي سوالي لقى صوت حتى ودريمي كر أي هاد رنتي سودا سي لقى سوق قاضي مقالة برتل هذا دتك الصوماليات وحان إلهي وقبريا إن وبدل غير قبسيو إن ماشي لقى صوت الحيلة ما هنا ملك لو عافي مال oo irsaaqad xalaal ah ku helaan in Ilaahay uu siiyo sababtoo wax kale oo inaada male arrimo siyaasadeed ayaa haysta arrimo runtii ay dad gaala ah ay ka faa'iideysteen in dad Soomaaliyeed 2021 ay nacayb isku qaadaan adiga kuma si fogaa karo waa arrimo siyaasadeed ma si dhaxgali karo laakiin dadkaas masaakiinta ah anoon barnaamijka jecelina dhinaca uga baxo dadkaas masaakiinta ah waxaan Ilaahay uga baryayaa in Ilaahay oo gurmad degdeg ah gargaar degdeg ah u fidiyo dadka Soomaaliyeed dadkaasi ku soo dul hogteena waxaan leeyahay hawsha aad qabateen iyo dadaalka aad muujiseen reer Puntland si muujiya hawshinana halkaasi ka wada waxaana idin rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo qeyr magaalada Laascaanood wixii arrimahaasi ku saabsan oo ku soo kordhana halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa iyo waxa Laascaanood ka socda aniga oo jecel in maadaama arrintan ay tahay arrimo siyaasadeed aad uga gaabsado laakiin dadka daawanaya ayaan u deenayaa mar kale ayaan ku celinayaa meego aan leeyahay arrinta Laascaanood ka socoto si aan wax badan uga ogaado in reer Soomaaliland arrintan isku raacsan yihiin iyo inay dad dana qaar siyaasadda wataan ay arrintan ka dambeeyaan waxaan leeyahay adigu sidaad u aragtaa sababtoo ah arrimahan oo kale waxaan ku aqaanay in dawladaha shisheeye oo kale dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan ama Somaliland ama Djibouti ama Soomaaliya ama meel kasta ay dadka kula dhaqmaan sababtoo ah Kenya oo ay meeshii ugu dambeeyay aan xasuusto dad Soomaali laga raafay dadku looma kala weydiinaynin adiga ma Somaliland ayaa tahay mise waxa tahay Djiboutian mise waxa tahay Muqdishawiyaan ma waxa tahay Jigjigiyaan ma Gaarsiiyaan taa ma ahayn inta badan la weydiinayay ma haysata ID-ga dalkaasi Kenya maya hadday jawaabtaadu noqoto waxa dadka laga soo daabulaya dabaqyada iyadoo qaar laaluush in laga qaato ma ahan si kale aan lagu sii deynin laakiin mar kale أنا waxaan u deeriyaa dadka Soomaaliyeed daawanaya arrintaasi sidaad u aragtaan aad u mas'uul daawashada muuqaalka waa shacshaka kale sida ayo muuqaal dambe xiiso leh nabadgelyo nabadina